السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا عصير آدنا iyo koroskeenii graphic designka qaybtan saddexaad insha Allah waxaynu socday casharkii tobnaad qaybtiisii saddexaad ayaynu maanta dhiganaynaa oo aynu ku dhigan doonno insha Allah stickerkan ayaynu socday oo aynu gacanta ku haynay casharkii koowaad labada qaybood ayaynu ku soo dhiganay qaybtii labaadna markaas waxaan ku dhiganay goobooyinkan iyo sida sawirada loo soo gelinayo inagoo markaasi ku dhigan doono qaybtan saddexaadna intan iyo boardkan iyo wax way leedkan cad iyo intan yara hoose markaasi si stickerku markaasi mid dhameystiran inoogu noqdo waxaan tagi doonaa insha Allah kani waa shape la soo qaatay kadibna waxa way labada gees dib loo yar riixay oo waxa way loo yar ciriyay iyo markaasi text loo isticmaalo lagu qoray waxaan sameyn doonaa insha Allah inaan soo qaadano shape-kan ugu sareeya kadibna halkaas sare intaynu kaga qabanno aanu sida ugu kaxayno insha Allah kadib waxaanu u baahanahay inaynu dib yar celino intayna dib celin horta stroke ayaynu ka lumin doonaa ama ka xidhi doonaa filkana waxaanu sameyn doonaa cadaan baynu ka dhigi doonaa kadib waa iska reebi doonaa hadda waa kan waxaanu sameyn doonaa inaynu sida kanoo kale inaynu labadan gees dib yar celino sidoo kale shadow yar inaynu samayno saas intaynu doranno ayaynu sameyn doonaa edit aynu warabkii yar gelino kadibna warab ayaynu dooran doonaa isla markaas waxaan sameyn doonaa inaynu dib yar celino halkan saa dib ugu yar celino halkanna soo yar qabanno dib soo yar qabanno in yar kadib tigtaa yar ayaynu ku dhufan doonaa hadda waynu gelinay waxaan sameyn doonaa insha Allah shadowgii yara inaan ku sameyno layerska ayaynu tagi effects drop shadow ayaynu leenahay kadibna har yar ayaa loo sameyn doonaa ama shadow yar intaasi markaynu dhammaystirno qoraalkan ayaynu ku qori doonaa Ramas restaurant ayaynu ku qori doonaa inagoo horizontal-ka soo qaadanayno qoraalka kadibna halkaas sare ku dhufan doonaa ku qori doonaa Ramas restaurant qoraalka markaan ku qorno control iyo events ku taaban si mar aan u wada highlight garayno kadib waxaan oran doonaa qaabkaasi ayaan farta u waaweynayn doonaa ama ishan yar ayaad furi doontaa kadib halkan ayaan iskaga reebi doonaa sidaas ayaan bartanka ugu soo aadin doonaa si haddaba qoraalkan u kala hooseeyo kan hooseena waa yarayn doonaa aanu u kala sarraysiin doonaa halkaasi dhexda ayaynu laba jeer kili ku siin halkaa bartanka aynu ku dhufan kadib inter baan leenahay oo ah line hoosudi kaa sare ayaynu dooran doonaa si aynu ka kala uga weynaysiino saasaynu markaasi u weynin doonaa insha Allah kadib tigta ayaan ku dhufan doonaa waxaan sameyn doonaa inaan markaasi hoos soo yar dejiyo sidoo kale xaggana oo yar jiidi doonaa shiftida ha qabanin marka daclada oo yar kala bixinayso waxaan kaloo sameyn doonaa qaabkaasi markaan ugu soo aadino waxaan sameyn doonaa weli in yar baynu yarayn doonaa character tag farta markaad yaraynayso kadibna tiidan yar ayaynu ama laba jeer kliksi kadibna tiidan ka yare in yar tan hoose ayaan gaar u yarayn doonaa intaan gaar u highlight gareeyo ayaan siiskeeda yarayn doonaa kadib tigta ayaan ku dhufan doonaa hadda waxaan filayaa inay si fiican u haysato oo ku habboon tahay meesha ka magaciisa u sameynay intan yar ee hoose ayaa inoo dhiman ee waxa weeye textiga iyo qoraalka lagu soo sameynayo waxaan sameyn doonaa iyagana insha Allah shape yar baynu soo qaadan kadib sidaas ayaynu ugu highlight garayn waxaan ka xidhi doonaa stroke ayaynu ka xidhi doonaa
waxaan kala samayn doonaa filka inaynu color siino ama cadaan ka dhigno ama green ba ka dhigno. in yar baynu xaggan kasoo yar waabin. kadib waxaynu samayn doonaa inaynu soo hoos marino kan inaynu soo hoos marino. inaynu kan soo hoos marino saasaynu u dooran. kadib layeriska ayaynu tegaynaa. kadibna saasaynu usoo hoos soo qaadi. aynu sidaa u yar wadi. xaggan hoose ayaynu keeni ilaa iyo inta uu hoos marayo, ilaa iyo inta liidkaa yari soo kor marayo. hadda ayuu soo hoos maray. isagana waxaynu ku samayn doonaa shadow yar ayaynu u samayn. fxactivan tegaynaa drop shadow. shadowgii yara waa u sameeyey. waxaan rabaayo keliya markaasi inaan ku qoro inaan iconis baa loo yaqaanaa waxyaabahan ama waxyaabahan yaryar sida phone numberkii iyo locationkii waxyaabaha iconis baa loo yaqaanaa. iyo qoraalkan inaynu ku qorno. waxaanu samayn doonaa insha allah iconiskan waan haystaa. websiteka lagala soo degana insha allahu tacaala waa 10 ayaan kaaga dhigi insha allah. waa duubaya iyagana insha allah. casharada ayaad ku dhigan doontaa. waa kan sidaas ayaan soo daraagarayn doonaa insha allah. kadibna waxaan dul keeni doonaa halkan ayaan dul keeni doonaa. halkaas ayuu degay. kantaroshan oo haya ayaan soo qaadi doonaa. markuu yar yahay kantarosha raaci si aan kuwa kale kuu soo raacin. kadib halkaa markaan keeno waxaan samayn doonaa inaan kalarkiisa cadaan ka dhigo si uu meesha uga muuqdo. shadow yarna inaan markaasi u sameeyo. layeriska tag. waa ii dooran yahay color c. coloriska tag. kadibna cadaan ka dhig. sidoo kale shadow yar u samee drop shadow. kaas waan keensaday. ka kalena insha allah isagana aan soo qaato lambariska sidaas ayaan isagana usoo qaadi doonaa insha allah. kadib kantarosha ayaan qaban doonaa si aan kuwa kale iga soo raacin. tigtayar ayaan iskaga reebi doonaa. layeriska ayaan togi doonaa. fx color cadaana ayaan siin doonaa isagana. shadow yarna waa siin doonaa. wakaa waxaan samayn doonaa markaasi insha allah inaan qoraalkii ku qoro. textigan ayaan soo qaadan doonaa. halkan ayaan ku dhufan doonaa. waxaan leeyahay Hargeysa. siyaskiisa ayaan yarayn doonaa. waxaan kaloo samayn doonaa kalarkiisa cadaan ayaan ka dhigi doonaa. halkaa markaa kalarkiisa waad ka bedeli kartaa. karakterkanna waad ka bedeli kartaa farta kalarkeeda. fartu aad ayay u buurbuuran tahay. mid dhoodhooban ayaan ka dhigi doonaa oo dooran doonaa. farta nooceeda halkan baa laga bedelaa. mid yar oo yar qurux badan oo kusoo baxaysa meesha ayaan u baahanay. taas ayaan ka dhigi doonaa. wakaa iyada laftigeeda shadow yar ayaan u samayn doonaa. hadho yar ayaan u samayn doonaa. waxaan kaloo samayn doonaa inaan kan ka koobiyeysto. control iyo j intaan idhaahdo aan qaato. halkan keensado 2 jeer kili ku siiyo. kadibna aan markaasi lambarkii ku bedesho. kadib control iyo isku qabto
seeska farta yareeyo markaas kadib okay baan leeyahay waa dhan tahay sidaas ayay ku dhan tahay waxaan kala samayn doonaa insha Allah fartanon inaan shadow yar u sameeyo saa u dooro layer iska tag drop shadow aad leedahay okay sidaas ayuu ku dhan yahay stickerkeeni uu inoogu dhan yahay waxaan samayn doonaa insha Allah inaan save garaysano okay kii kalena waxa laalay wuxuu kaga duwan yahay ma jirto waliba kii kale isagaba ka qurux badan kan ila si qurux badan waa kan waxaan samayn doonaa markaas inaan save garaysto file tag save as baad leedahay waxaan leeyahay markaasi jpg xarafka j baan taaban kadib waxaan tagi doonaa insha Allah board baa igu qoran waxaan ka dhigan doonaa board 99 ayaan raacin doonaa waxa laga yaabaa in boardar kala jiraan kadib musiga ayaan ku save garaysan doonaa save baan leeyahay okay baan leeyahay markaasi isagoo jpg ayuu iminka inoo save garaysan yahay oo wax yar inooga hadhay intaa markaanu save garayno waxaan samayn doonaa insha Allah inaynu isagana samayno jpg isagoo ah waan eegi doonaa insha Allah waxaan tagi doonaa musiga kadib board 99 ayaynu ka baari doonaa board 99 ayaynu ka waka boardkeeni isagoo dhammaystiran oo good ah hadhow waxa weeye boardkaaga tooska ayaad ugula soo bixi kartaa waxa kaloo samaynaynaa insha Allah inaynu tif ku save garaysano ama bsd iyo tif waxaanu nidhi waxa weeye waa format haddii wax kaa qaldamaan aad intaad dib ugu soo furto photoshopka aad wax kaga bedeli karto markaa waxaan tegi doonaa insha Allah save as baan tegi doonaa kadibna waxaan ku save garaysan doonaa tif waynoo yahayba halkani tiftaasaynu daysan waxaan leenahay board aided halkaynu board 99 jpg kaga save garaysanay tifkana saas ayaynu ku save garaysan kadib okay baan leeyahay isaguna waynoo save garaysmaya haddaba markaa bal waxaynu eegaynaa inaan photoshopka iska xidhno oo waxa weeye markaasi dib u soo kicinno waynoo save garaysmay photoshopka oo dhan baan iska xidhi doonaa haddii wax naga qaldamaan qaabka aynu dib ugu soo furanayno photoshopka ayaan ku tusi doonaa insha Allah okay waa kan board aidedna haddii aad dul tagto saa markaad u yara dul taagto mouse-kaaga tif file ayuu soo qorayaa kana jpg file ayuu soo qori doonaa okay haddaba kan markaan rabno photoshopka iminka iska xidhnay waxaan rabnaa in waxaan lagu yiri magacaaba wax ka qaldan yihiin right click baan leenahay qaybtii key tifta ahaa kadibna waxaan leenahay open with photoshopka ku fur baan leenahay kadib waxaan sugaynaa inta uu photoshopka ku soo furmaayo time yar buu qaadanayaa okay uu inoo soo furmay qaabkaasi ayuu noogu soo furmayaa marka waxaan awood u leenahay inaynu soo weynayno inaynu sawirkana den doono ka bedelo inaynu meel kasta waa bedeli karnaa waayo tifka waxaanu dib u edit garayn karno haddii wax naga qaldamaan aynu wax ka bedeli karno design kasta oo aad design garayso hadhow inaad tifna ku save garaysataa waxaa laga yaabaa in wax ka yar qaldamaan in colorka laga yarboodo in lambarku qaldamo in locationkaad wax ka qalado kulli bili aadan baa taa markaa waa inaad tif ku haysataa designka aad design garaysay casharkeenu intaasi ayuu ku dhan yahay 3 qaybood ayaan stickerkan ka dhignay inagoo ka cararayna markaasi time ka dheer insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi